sheekoy sheeko sheeko xariira shilin baa dhuustay kafanaa sheegay sheegaa macawis beri waxa saaxiib ahaa libaax iyo dacwo waxay wada lahaayeen ari fara badan siday arigii wada lahaayeen ayaa waxay tidhi dacwadii baa ku tidhi abti libaaxow arigeennan haddaadnu xayawaanada kale arigoodana ku darsano waa inoo sii badan lahaayeen kadibna ari badan baan heli lahayn waxa kaleynu heli lahayn labadeennu baa ku daalo marba raacnee qaar badan oo inala ilaaliya adigu boqorkii baa tahay maxba maad ilaaliseen gurigaad iska joogi lahayd iyaguna way inala ilaalin lahayn markaasi buu yidhi waa hagaag waxay soo kaxaysteen mas waxay soo kaxaysteen oo kale biyo waxay soo kaxaysteen oo kale dab waxa kaloo u yimid gorayo wixii oo dhan baa intaasoo dhan ayay u yimid iyo u keentay iyaga iyo aryahoodii oo dhan markaasi bay halkii yimaadeen maalintiibay shir galeen waxay ku tiri dacwadii abti libaax isagu waa boqorkeennii halkaasuu iska joogayaa inteena kale anigu maalin walba waan raacayaa maalin walba midkiin baa ila raacaya kuwa kale hadhayna guriga ha kasii shaqeeyaan sidii baa lagu heshiiyey maalintii ugu horreysay iyo waxaa ku jiray waraabe maalintii ugu horreysay waxaa israacay waraabihii iyo dacwadii markay arigii raaceen wada kaxeeyeen ayay dacwadii arigii iyadu maalin walba mid bay ka cuntaa mid bay iska cuntay markay iska cuntay buu u yimid iyadoo cuntay wuxuu ku yidhi naayaa dacwo maxaad cuntay markaasay tidhi mar walba anigunbaad i eegtaa waxa weeye waxaan cunay waxa la i siiyey qolaa iska kay siisay in yaroo subaga waxay siisay xaydh iyo baruurtii xeydkaa hadhihoo intaan iska cun oo iska wada marmarso oo ku dhaasho adiga boodhka badan leh waxba anigu kale maan cunayn intiibuu ismarmariyey kadibna wuxuu arkay iyadoo ilkaheegii fandhicilaysa aase yidhi maxaad ka fandhicilanaysaa se tidhi alla huurade keen adigana kaa fandhicile way kaska saartaa hilibka ilkaheeda ku jira isagay ilkiisay gelisaa way ka saartaa way gelisaa kan adna kuu fandhicile wixii oo dhan uu ka buuxisay isaga iyaduna way iska wada saartay gurigii markay tageen libaaxii arigii buu tiriyey 1 2 3 4 5 mid baa maqan yaa cunaya se tiri abti libaaxow anigu waxaan ka shakiyey waraabe waayo wada subagna wuu u egyahay iyaduna boodhkii bay kusii galgalatay subagna wuu u egyahay ilkihiisana waxaa ka buuxa hilib bal abti soo eeg libaaxii baa u dhawaaday waariyaa waraabe ilkahaaga tus ilkihiisii yidhi ilkihiisii wada hilibkii ay ku kurtay ka buuxo sidaasuu arkay wejigiisii wada subaga uu u yimid run weeyaan waraabaa cunay maxaan ku sameeyaa abti alla abti soo waraabe maaha ma naf buu leeyahay inaga eri ha tago waxaad ku tiraahdaa waraabo haddaad halkaa ka tegi weydo wax ku gaadhaada isu geystay eri abti waraabaha waraabihii baa u yimid wuxuu ku yidhi haddaad ku arko adoo meelahan jooga luquntaan kaa jabinaya waraabii baa iska baxsado iskaga tegay markaasiba maalintii dambe ayaa arigii waxaa wada raacay haddana gorayo iyo dacwadii baa iyadu aroortii markay ahayd sideedii neef yar iska soo qabsatay way iska cuntay markay aragtay ayay tidhi gorayadii baa ku tidhi gorayo iyo dacwo maxaad u cunaysaa xoolaha mase ku tidhi allah adigu miyaad cuntaadee anigunbaa iska cunaya iska aamuso ina qariyo mase tir kuma qarinayo waan ku sheegaya mase tir hadda gorayo waxaad jeceshahay baan maanta ku siinaya maxaad siinaysaa xabagtu waa xanjada geedaha ku taala xabagtaan ku siinaya xabagtiibay geed bay xabagtii kasoo qaaday markaase in xabagoo jilicsan siisay dacwo waxaa jeclaatay gorayadii way cuntay markii dambeba dhagax ugu dhex laabtay se tiri liq kan waa mid kasii jilicsan way liqday halkaasi kaga joogsatay guriga markaasay tiri mid kalena u geysay si ka deg weyda dacwo gorayadiiba
tirnaa goraya oo xabagta markii dambe bay u tageen markay habeenkii tageen buu tiriyey libaaxi arigii mid baa maqan maantana yaa cunay abti waxaan ka shakisanahay gorayo maanta oo dhanna naa gorayo arigii mid baa maqanay maad aragtay unbay tidhaahdaa hadalba weydiitay bal abti ordo weydii unbay ku tiri ilaan guriga waxa kaga taagan dhagaxiye mase tiri abti saa kumay odhan haa iyadaa cuntay abti adiguna hilibkeega iska cun adiga jecel hilibkeedu macaan yahay anigana harageeda 2 kabood oo caar la iiga tol libaaxii baa gorayadiina iska cunay 2 kaboodna wuu uga tolay maalintii dambe ayay tiri abti maanta waxaan doonayaa inuu ila raaco waxaan doonayaa abti maanta labaan doonayaa inay raacaan haye waxaan doonayaa abti maska iyo dabku inay ila raacaan labadooduba waayo dabkana waan iska yaraa halkan uu noo yara diirdiirin maskuna maxay haydeenay ha-in isaguna hayla ilaaliyo way israaceen dhin markay israaceen ayay iska cuntay lax markay cuntay ayay u timid markaasi bay dabkii iyo maskii baa soo isla yimid guriga wax tiri abti miyaad ogtay maanta maskii wuxuu sameeyey masku waa cadow miyaa la aamini karaa waa ka markiiba lax yar oo halkaa joogta qaniinay de maxaan sameeyaa meel fogna waan joogay laxdii halkii bay ku dhimatay halkii waan kaga imid markaa abti maskani waa cadowe waa kaa muska galay oodii guriga weeyaan muskaa waa ka galay abti dabka u dir dabkaasi haynaga gubo maskii baa libaaxii baa yidhi waayahay dabkiiba ku yidhi dabow muskaa oodaa maska ku dhex jiro ololi maskaasi halkaa ku gubtay halkii baa maskii ku gubtay maalintii dambe ayaa waxaa hadhay maxay haydeenay waxay israaceen waxay maanta abti biyuhu hayla raacaan biyihii baa la raacay biyihii ayaa markay iska socdeen ay arigii ilaalinayeen ayay markii dambe waxay aragtay biyo hoosta socda buur dusheed buurta bay tagtay alla biyow carmeed ordi taqaanaan haddaad oradaan aynu wada baratan biyihii baa buurtii kasoo shalwaday way baratameen biyihii kale webigay ku darsameen khalaas halkaasi biyihii ku raaceen way u timid abti kuwii biyaha waxay sameeyeen maad ogtahay biyo kaluun bay arkeen oo way iska raaceen maalintii dambe ayaa waxaa hadhay uun dabkii markaasuu tiri abti maanta waan daalaye maxay haydeenay iyo maxay libaaxa abti libaaxo waan daalay maante ariga adigun raac aniguna waan sii joogaynaa halkan aniga dabkuna cuntadii baan inoogu sii karkarin adiguna raac waayahay libaaxii baa yidhi waa runtaa maalmo badan baad kelidaa raacda arigiibu doonay dacwadii aroortii waxay bilowday inay god qodo qoryey ku gurta dabkiina waxay ku tiri dabow ordo inoo guba qoryahaasi markaasuu shideen dabkii shidmay gogashii waxay markuu soo dhawaaday libaaxiina waxay dul gogashay godkii barkimay u dhigtay waxay u dhigtay gogol bay u saartay fresh bay u saartay waxay ku tiri abti libaax maanta dhan baad soo daashay alla abti waad soo daashay abti halkan iskaalan kuu gogolay kaale fadhiiso libaax baa saa iskugu tuuray wuxuu ku dhacay godkii wada ololay alla naa dacawaay naa wadi deebisee dabkaaba naa dabka iga bakti caana keena ariga soo lisa naa dacawaay naa kaalayo iga caawi dabka guriga soo xidhxidha ariga xidhxidha naa dacawaay qadadii meedaya markiiba ku wada gubtay markii kusaa ugu wada gubtay ayay arigii oo dhan waxay heshay iyadaa kelideed iska yeelatay gurigii iyadoo iska joogto arigii maalintiina way kaxaysaa maalinta intay doontay ka cuntaa habeenkiina way soo xeraysataa ayaa waxaa la ogaaday dadkii meelaha agagaarka deganaayo dhan baa isku sheegay maad ogtihiin dacwadu kelideed bay gurigaayahaas oo dhan
waayo meesha imise guri baa ka dhisan, gurigii libaaxa, gurigii dacwada, gurigii waraabaha, gurigii gorayada, gurigii maska, guryihii oo dhan. Waxaa lasoo eego rag baa farda soo kaxaysta fakagaca way u yimaadeen. Waxay guryihii oo dhan markay aragteen lagu soo socday, guri walba dabadana way ka daloolisay, xagga hore albaab ku leeyahay, kan bay ka wareegtaa, markaasay xaggan kale ka gashaa, markaasay dhahay guriga ayaa jooga, masay orodaa dhinta xagga kale usii socdaan, annagaa joogna, markaasay ka dhex tiraahda, markaasay haddana ka kale u wareegaan, xagga dambe kasoo wareegtaa, way sii dhex joogsataa, guriga ayaa jooga, annagaa joogna, maxaad rabtaan? Say iska yimaad, waar guri walba waa la joogaa, ina marsha libaaxu yaanu ina cunin. Way iskaga tegeen. Markay iskaga tegeen ayaa maalintii dambe ayay ku tiri allah, markay sii baxeen dacwaduna ayay sheekseed ku tiri allah, dayacalay dad moodeenoy dunya uga yaaceen, dayacalay dad moodeenoy dunya uga yaaceen. Dunyada xoolaha la yidhaahdo waa loo soo noqday, arigii oo dhan ayaa laga kaxaystay. Waxa uu hadhay dibi keliya iyayna arag, arigii baa laga kaxaystay. Markaasay fikirtay sidaad yeesha, dibigiibay waxay ku xidhay daasado, waxay ku xidhay biro, wax kasta way kaxaysay. Qalalamasay tirahdaa aliyaa cumarow fardaha qoobkooda kala duwan, cadowga waynu gaadhaynaa, fardaha qoobkooda kala duwan, qububuuxo qababax. Markaasay maqleen manku, war waa layna soo dabagalay, war col badan bay wadataa, war dacwadu waa khaayimad, inayna dishay doonis arigeeda aynu uga yaacno. Way uga yaaceen, sidii bay arigii kelideed ku yeelatay, oy taajirad ku noqotay. Sheekadii way dhammaatay.